وعسكو دقينا أنا قد كوسو علونا مدحونا دولة فدرالك الصومالية حتى الشيخ محمود ويسوقيان شعبي غير ويزلان ولينو هالكان كير هذا أرجع كوها بوناي وروح نقول جرنا سودوينتي دولة فدرالك الصومالية لو قصوا دوينا يا دمستركي دولة الصومالية مركز دمستري قولوا ذو وزيرنا وعنوان بلينا وزارة الصومالية الدكتور عبدي فرح سلطان ساعد وصودا مستري واكو مقلة بدل مدحوينه waxaa soo dhaweynaya jaalida Soomaaliyeed Switzerland ayadoo waxaan baleynaya dhamaystirka dawladda Soomaaliya ay qofkana hadlay halkan ma joogo miya ala xiriirinaya بدل مدحوينه bismillah alhamdulillah مذكرة هاي بسم الله الحمد لله والصلاة على وما شركة يوم كمان كانت وحا رباعنا طبعا فرح ثلاث سلام عندنا كمان في كوبان فهلو arrimaha suuqa ay shaqmarayaan boqolkii maalmood oo aan dalka aniga madaxweynaha dad soo dhamaadeen maalmo ayaa le oo qabsoomeen waxbado waaye waxaan rabaa caawa inaan si kooban iyo maxaan ku yidhaahday meesha xaalad maalintii aday ilaa badanaa ka dhacay dalka digaan wax ka qabanay dib u heshiisiintaan wax ka qabanay maca maamulka dawladda waxaan soo magacawnay waxaan markii ugu horeysay 3 bilood oo aan baarlamaankan gareynay oo baarlamaanka waxaan kadibna ku xig wasiir ku-xigeenadii waan soo saarnay xaggaasi dawlad dhisid ay ahayd magaalada muqdisho ama aad maqasheen wax 6 isbaaro oo ah isbaarooyin aan sharci dawlad aan lagu qaadin meel lacaga looga qabo dawladda Soomaaliya waxay ku joojiso isbaaro taasoo maanta caawaan idinla cabto wax isbaara oo iyo dhuumasho isbaara maanta dadku ay garan arrintaasi ka sokoo waxaa kaloo xaafadihii dadku inay waayeen baa laleeyahay $7 meesha ka baxday maalmihii koobnaa ee dadku waxay dib u bilaabeen cabsi iyo lacagtaas bilaabaan inay dhistaan dhinaca amniga sidoo kale waxaa magaalada muqdisho ka soo 3 xero oo ciidan si loo waayo nin ciidan aan shaqo haynin waxaan go'aaminay xero oo haddaas joogaan xeradaasi uu ka soo baxo aan shaqo u socon waxaan ku xijin doonaa xero kale oo xero tababar ah baadinana lagu joojinayo ciidan dibadda soo tababaro tababar ciidan oo dhan ah oo ka dhaco maxaan ku yidhaahdaa dadkeeda marka si kooban haddii aan soo koobo intaas xawaayo waxaan dabanka dibka ah oo cilaaqaadkooda cilaaqaad Soomaaliya ayeen oo aan saxno meel gacan abuurtiisa marayso si kooban haddii aan idinku
إفراريال حصلت بهدية الساي قال أموري سماش أرسام فقط على الدكتور كانت مصدق شيء لذلك قوام وطنع ربما يكالمني على حتى ونوصل بستاكتك وأقولت دويسين وأقولت أنا إحنا تلقيت أقولي أنت أرسلت أسئلتي ذلك وانتنا كما قبلت أمرنا أرنت أفتح هذا قارب بحسان وأد صندوق فرطان وأد أذكرت أزمتها قلت الوطر أو نكتر سكتين أو تلقي السجل الفضلتينيو وأعطى أهلتان إن تكون نقطان فرطينيو قلت دوان وحيكوبا لقال الله أرورني دلوقتي مساعدته waxaan caawa rabaa si rasmi halka ka codsado inaad tarxadibkaasi maanta u yimaado oo aaqaabka lacagaha subay aan wacayno inaad soomaaliya taageertaan si ay amniga dalka shacab celinahay sidoo kale dalka waxaa ka bilaaban doona gobaan maamul samayn xukunkii magaalada muqdisho kaan jiray inaan ka oo dowladnimada aan ku وعن طبابة يدكتور تجينه وعن جينه كان كذا عادات إيجو مشروع دستور وأقدر على الإسلام وقت دعي تقدر نفكر في اللوجي تقدر كاسمين دونا كان تقولي في يقولون فقط أقولكم بالجار وضبط دونا واحد صدر وحلول على الجرساكين دولة التياشن ساعتان دولة يعني أنا كنت أقول أنت ترى وادين مهدئ أنا وعالم دولة يا دمان يترودان ذلك فوقصور نقلها قطفتني أوصور أبدا يقف تطوما أوصور نقلها إنساس كده الخير بدل ما يمكن في الكتاب وعلى عم بغير ريال وأنا كنت أستفيد سفينة هذه الجلالة الدولة أستفيد وأفكر أمور تيسير تاجرته وأنا كنت أدعي هنا تاجرة معدوي أنا تاجرة أو ماتيريال على الكلام ده يا رمز يا عم فريد زمان aad ayuu u mahadsan yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qadka teleefanka barnaamijkaasina si toos ah uga qaadanaya isagoo jooga magaalada Muqdisho inkastoo waqti dambe ay u tahay waa ka raali galeynaynaa madaxda xilligan inay barnaamijka nagala qayb qaataan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka halkan fadhiya ee gobolada kala duwan iyo magaalooyinka kala fog ka kala yimid iyadoo waliba bariyahan